السلام عليكم وانا islaami عشان Soomaali fans meel kasta joogtaan waxaan leeyahay xil iyo xal wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Arsenal News oo ku daawataan markii ugu dambeeyay qoray Gunners waxa soo jeedinaya barnaamijka aniga Nuuraan Shakra halkaan ay daawanaysaan waa Arsenal Soomaali fans barnaamijkeena haddii aan gudagalna waxaa leeyahay Granit Xhaka oo doortay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Roma. Xhaka ayaa cadeeyay inuu doonayo inuu ka tago kooxda kubadda cagta Gunners waxaana si cad u sheegay in maamulka sare ee Arsenal inuu doonayo inuu ku biiro Roma xagan. dhanka kale waxaa leeyahay wiilka Edu Gaspar ayaa bilaabay inuu follow gareeyo bog Instagram-ka ciyaaraanka Rennes Eduardo Camavinga ayaa bartilmaameed u ah kooxda Gunners suuqa xagan. dhanka kale waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa qorsheeda suuq kaliibsiga ku soo darsatay Hector Bellerin. Naadiga reer Spain ayaa iibin doonta Trippier ama Simon Versailles oo mid kamid ah waxayna dhaqaaqi doontaa Hector Bellerin sida qortay majalada Marca. kooxda kubadda cagta Lazio iyo Lucas Torreira ayaa la sheegay inay gaareen heshiis shakhsi ah iyadoo Arsenal ay doonayso xidiga inuu ku iibiso 20 milyan. dhinaca kale haddii aan fiirino waxaa leeyahay sida laga soo xigtay idaacadda reer Portugal ee Rennes Arsenal ayaa doonaysa inay 20 milyan ku iibiso xidigeeda Matteo Guendouzi. dhinaca kale haddii aan fiirino waxaa leeyahay Arsenal ayaa wada hadlo kula jirta Eintracht Frankfurt weeraankeeda Andreas Silva sida qortay BBC Sport. Ramsey ayaa doonaya inuu dhaqaaqo Arsenal laakiin dhibaatada weyn ee heshiiska ayaa ah in qiimaha ciyaaraanka aad u sareeyo. Arsenal lama doonayso inay xidigan kula soo wareegto qiimo aad u sareeya. dhinaca kale waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa kusoo biirtay dhacdada lagu jiro xidiga Ben White kaasoo Arsenal hor xiiseenaysay. Arsenal ay ku qasbanaan doonto inay bixiso qiimaha xidigan oo ah 50 milyan si ay gacanta u dhigto xidigan hadii kale waa PSG. dhanka kale haddii aan fiirino waxaa leeyahay kooxo badan ayaa xiiseynaya saxiixa Reiss Nelson. kooxo badan oo ka dhisan Bundesliga iyo Premier League ayaa xiiseynaya xidigan. kooxaha kale Hertha Berlin iyo kooxda ka dhisan horyaalka Greek ee Olympiacos ayaa diyaar inay xidigan la soo wareegaan. dhinaca kale waxaa la sheegayaa in Arsenal doonayso inay jaan siiso daafaca la yiraahdo William Saliba si uu u muujiyo qaab ciyaareedkiisa. waana intaa saaxiibayaal barnaamijkeena maanta waxaa soo jeedinaya aniga Nuuraan Shakra inta kulmin doono waxaan idin tagayaa sidaas nabadgelyo.